wasiirka warfaafinta Puntland Maxamed Cabdi Dirir oo dareemay kacdoon bulsho iyo cadaadis uga yimid dhanka madaxtooyada ayaa saacada kadib bartiisa Facebook ku soo qoray in waraysi uu bixiyay maanta oo ku saabsanaa qadiyadda Somaliland oo aragtidiisa u gaarka ah isla markaasna uusan ku matalin Puntland iyo xukuumadeeda midna. Wasiir Cabdi ayaa waraysigaas ku sheegay in Puntland ay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka Soomaaliya isla markaasna aysan raali ka ahayn aqoonsiga Somaliland ay siisay Israa'iil isagoo yiri mowqifka Puntland waa midnimo Soomaaliyeed ma jiro calan Somaliland ah oo lagu qaatay xorriyadda Soomaaliya isaaq Soomaaliya haday ka go'ayaan inta ay leeyihiin ayay la go'ayaan oo ah qaybta Togdheer iyo Ceel Afweyn ilaa xaafadda galbeed ee magaalada Ceergaabo. Wasiir Cabdi ayaa si weyn u khilaafsan war uu horay u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Siciid Juuxa oo kaga hadlay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland isagoo sheegay in Puntland u baahan tahay inay si istiraatiijiyad ah u xisaabtanto sidaas oo kale isagoo Somaliland ku amaanay samir iyo adkaysi. hadalka Cabdi ayaa ku socday xilli shirki golaha wasiirada Puntland ee maanta lagu go'aamiyay in guddi gaar ah loo saaro qadiyadda aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland sida xogta ay ku heshay warbaahinta dunida online.